بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولين تقدريها هيئة شغالها أقسمها هيئة iyo mas'uuliyiinta kale la socotaba marka koowaad ku soo dhawaada guud ahaan xafiiskii golaha wakiilada gaar ahaan xafiiskii guddiga ilaalinta hantida qaranka. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. laba kulan hore aanu idiin appointment idiin qabanay sidii sharcigu ahaa waad nagu soo jawaabtay. mas-uulku daamaynu maadaama kulamadaasi ay yihiin kulamo dastuuri ah la imanaya haddii cudurdaar jiro inuu waraaq soo caddeeyo oon idinka mahadnaqaynaa qaar aan soo jawaabin baa ku jaayayaa marka waad ku mahadsantiin boqolkiiba boqol inaad ka soo qayb gashaan oo waktigii ku timaadaanna waajibkii dastuuriga ahaa waydan gudateen aad iyo aad mudan gudoomiye ku soo dhowo. kulankani waa kulankii koowaad ee aynu hay-adda yeelano. wiil kasta hay-ada dawladeed unbaa goobtan imaado oo lagu xalwareystaa macnaha guud ama mabda'a guud ee inaynu soreysaan ka dambeeya waa in wax la toosiyo in laysku warhayo hay-adaha dawladdu isla xisaabtankii oo ah tiir weyn oo muhiim oo dawladnimadeena muhiima. marka su-aalaha iyaguna waxaan rajeynaya inay si fiican idinku imaadaan xog waraysi kadib jawaabihiina inay si ixtiraamla ku imaadaan. marka intaynu halkan fadhino waa inaynu u niyeynaa inaynu dalkii u shaqaynayno qarankii u shaqaynayno shaqadeynu inay noqoto wax isweydiin iyo ixtiraam wada socda. marka idinkana waxaanu idinka filaynaa in si degan kulanka si degan weydiin baa imanaysa jawaab baa imanaysa waa intaasun. hay'adda shaqaalaha iyo golahana runtii waxaa ka dhexeeya xiriir wada shaqayn oo runtii muddo badan oo isku da ahaanba soo jiitamaya. ka sharafay runtii tahay inaan xildhibaano dhalinyara asxaabteeya soo wada shaqaynay aan runtii maanta aan haddana kulankan isugu nimaado. laakiin warbixinta guud iyo su-aalahaba runtii waa waajib dastuuriya oo aad xaq u leedihiin wixii aad u baahantihiin inaad weydiisaan. anuguna xaq aan u leenahay jawaabtaan hayno inaanu idin siino si runtii shaqadaan hayno iyo taad haysaan markaa ay isku kaabto. hay-adda shaqaaluhu waa hay-ad runtii dastuuriya si aad ka war haysaan oo la aasaasay sanadkii 1993 aasaaskeeduna uu bays ay u yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. qodobada runtii aad ka u faahfaahinayana aad si fiican uga dharagsantihiin. marka hay'addu waxay u taagan tahay dhismaha tababarka daryeelka xaqsiinta iyo dabagalka shaqada iyo shaqaalaha dawladda guud ahaan iyo gaar ahaan inta hoos tagta. waxaa jira shaqaale weyne fara badan oo aan hay'adda shaqaalaha hoos iman oo idinku gacantiina ku ansixisaan oo runtii dee taana aad ka war haysaan oo aan runtii xagga dambe aan ugu iman doono. waajibaadka hay'adda shaqaalaha dawladda waxaa laga soo dheegay sidaan sheegay xeerar iyo dastuurka qaranka. xeerka ugu dambeeya inuu ku shaqeynaana waa xeer number 97/2022 oo xeerkii runtii aad la kowsateen wax ka beddelkiisa iyo kaabistiisa aan idiin soo gudbinay oo runtii muddo dambana aad ku noqoteen kii hore inaad ansixisaan. xeerkaasi waa xeerka imika rasmiga ah ee hay'addu ay ku shaqeyso isagoo oo laalay xeerarkii iyo xeer nidaamyaashii iyo habraacyadii ka horreeyay oo dhan. hay-adda qaab dhismeedkeega waxay ku yaalla xeerka oo ay ka kooban tahay gudoomiye ku-xigeen iyo xubno commissionerisa. waxay leedahay agaasimo guud iyo 7 waaxood iyo 5 xafiis oo dhammaantood runtii shaqooyinka ay qabtaan shaqooyinka mandate-ka waa hay'adda shaqaalaha ah. waxay kaloo leedahay xafiisyo ku leedahay gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. mabaadi'da aasaasiga ah ee marka hay'addu ay ku dhisan tahay waa mid qaanuuni oo xeerarka iyo dastuurkaba ka farcamaya.
oo sheegay hay'adda shaqaaluhu inay u taagan tahay mabaadi'da sida isku duubnid daacad hadaf dhexdhexaadnimo xirfad hufnaan wadaniyad iyo sinaan iyo cadaalad waa inta bayska u ah marka meelaha aan runtii ku shaqeyno ee xoogga saarnaa marka waxaan isdul taagi doonaa marka in yaroo kooban waxyaabihii hay'adda shaqaalaha u qabsoomay guulihii ay gaadhay iyo halka ay taagan tahay waxyaabaha runtii qabsoomay ee aan doonayo ma yani warbixinteeda kuma wada dhammayn karo oo haddaan isdhaahdo gal dee waqti bay qaadanaysaa laakiin waxaan ku dadaali doonaa bal inta ugu muhiimsan mudane guddoomiye inaan soo koobo waxaan ku horreysiin doonaa dhammaystirka diiwaangelinta shaqaalaha dawladda oo runtii waqti badan qaatay tacab badanna uu galay sidii loo diiwaangelin lahaa shaqaalaha hay'adda shaqaalaha markaa hoos yimaada maanta waxaan naqaanaa qof kasta oo shaqaalaha waqtigu shaqada galay waqtigu la diiwaangeliyey waqtigu dhashay magaciisa saddexan magaca hooyadii goobta uu ka shaqeeyo shaqaduu qabto titleka uu hayo waxaasoo dhan waxay ku kaydsan yihiin xogta safarka hay'adda shaqaalaha oo runtii waqtiyadii hore aan jiri jirin imika haddaan u baahdo qof shaqaalaha waxaan ku heli karaa minute iyo second wax ka yar gobolku doonaba ha joogee waqtigii shaqada la qoray iyo xogtiisa macluumaadka oo dhammaystiranba waxyaabaha runtii markaa aan sugnay waxaa ka mid ahaa xogta shaqaalaha marka hay'adda shaqaalaha hoos yimaada oo markii hore aan la ogeyn tiradooda tayadooda aqoontooda iyo waaraagnimadooda taasina runtii ay diiwaangelintaasi ay ka dhalatay in laga dhex saaro waxaa loo yaqaano shaqooyinkan dadkan ghost workers ama mushahar iska qaata aanan jirinna oo runtii aada ugu badnaa qaranka aada ugu badnaa shaqaalaha marka laga hadlayo runtii waa arrin xasaasiya oo la shaqayntooda iyo cadaalad samayntooda iyo dabagalkooda iyo la xisaabtankooduba runtii waa arrin u baahan waqti iyo dadaal fara badan dhammaystirka arrimahaasi markaa waxay u baahan yihiin in la sameeyo habraacyo iyo in la sameeyo siyaasado laga soo dheegayo markaa xeerarkii hore ku shaqaynaynay waxaan samaynay 16 siyaasadood 16 siyaasadood waxa waajibinayay markaa xeerkii hore sida xeerkan isaga laftigiisuna uu waajibinayo hay'adda shaqaalaha inay samayso habraacyo ka dhalanaya markaa qodobo fara badan oo ku yaala tusaale ahaan siyaasadda shaqaalaysiinta xulashada iyo magacaabista waa mid uu xeerarka markaa siyaasadaha aan samaynay ee markaa yaani xeerku detailkiisa aanu gelin waxaa ka mid ah siyaasadda xayndaabka kartida siyaasadda maaraynta howlqabadka siyaasadda maaraynta xirfadda shaqo siyaasadda maaraynta nidaamyada shaqada siyaasadda nidaamka lahaanshaha shaqaalaha iyo hibooyinka siyaasadda maaraynta anshax marinta shaqaalaha dawladda siyaasadda maaraynta fasaxyada waxaa ka mid ah siyaasadda tababaridda tilmaamidda iyo tusaaleynta siyaasadda xakamaynta qaab dhismeedka hay'adaha dawladda oo aan iyadana u tegi doono macluumaad fara badan oo xeerka iyo xeerarkii horeba ay nafreen waxaa kaloo ka mid ah siyaasadda tababarada iyo horumarinta shaqaalaha waxaa kaloo ka mid ah siyaasadda maamulka diiwaanada siyaasadda maaraynta cabashooyinka iyo tabashooyinka siyaasadda abuurista iyo mabaadi'da xafiisyada siyaasadda dalacsiinta shaqaalaha oo runtii arrimaha ugu waaweyn aan gadaal ka sheegi doono ee hay'adda shaqaaluhu ay qabatay ay xoog tahay bedelidda wareejinta ku-meelgaarka dib u celinta iyo dhimista shaqaalaha marka waxyaabahaasi waxay ka dhasheen diiwaangelintii la sameeyey siyaasadahaas dhinaca kale markaad eegto waxa la diyaariyey oo hay'addu diyaarisay qorshaha 5 sano ee hay'adda shaqaaluhu ay ku shaqaynayso oo runtii aan ku ammaanayo raggii aasaaska u dhigay 93kii ilaa maanta qol bay ku shaqayn jirtay laba shaqaalaha ka shaqayn jiray maantana waxay leedahay agaasimo waaxeedyadeeda ayaa waxay ka badan yihiin runtii intii lagu bilaabay marka hay'addu waxay leedahay qorshe 5 sano oo runtii kaabaya xoojinta maamulka suuban hogaaminta iyo awoodaha maamulka hay'adda shaqaalaha aasaaska habka kaydinta xogta iyo maaraynta cilmiga shaqada oo saldhig u tahay in la sameeyo shaqaalaha dawladda fursadaha tababarada la siinayo iyo qorshayaal fogfog oo la xidhiidha horumarinta shaqaalaha iyo awoodoodaba waxyaabaha kale ee runtii qorshaha 5 sano ee uu xoogga saaraya waxaa ka mid ahaa xoojinta adeegga bulshada iyo qiimeynta hawlqabadka shaqaalaha oo iyadana runtii arrin aada muhiim u ah qodobka ugu dambeeya 6aad ee markaa bilarka 6aad ee qorshaha 5 sano wuxuu ahaa diyaarinta iyo hirgelinta xeerarka shaqaalaha lagu dhaqayo
iyo xeer nidaamyaasha ka farcamaya oo runtii aan shaqaalaha qaranku aan u baahnayn oo keliya xeerkana oo keliya ay u baahan yihiin xeerar fara badan oo kale oo ka mid yahay xeerkii bashanka oo runtii isagana aan gadaal ka sharaxi doono waxyaabaha runtii aan ku guulaysanay markaa hay'addu ay xoogga saartay waxaa ka mid ah abuuridda iyo samaynta in la sameeyo aqoonsi kaarkan aqoonsiga shaqaalaha qaranka runtii lagu haybsooco oo la yaqaano qofka shaqaalihii maanta hadduu baasaboor u baahan yahay kaarkiisu ku tagaa hadduu u baahan yahay waxyaabaha qaarkood kaarkiisu si uu isticmaalo marka waxyaabihii hay'addu ay samaysay ka dhashay diiwaangelinta xogtaasi ayay ka mid ahay waxyaabaha kale ee runtii sanooyinkii ugu dambeeyay aan ku guulaysanay waxaa ka mid ah oo hay'adda shaqaaluhuna ay ku faanaysaa inaanu hirgelinay barnaamijka loo yaqaano e-shlinka oo ah nidaamka shaqaalaha dawladdu inay account looga furo bangiga Somaliland accountkaasi markaa sababta loo furayo sida loogu furayo afar waxba markaa caawinay kow wuxuu caawinayay lacagtii kuusnayd ee wasaaraddu intay soo qaadaan ay iska dhigtaan xafiisyadooda ee ka iman waayay ka kalena si kale loo isticmaalayay inay meesha ka baxdo laba in lacagta loo maamulo si transparency saddex in lacagta qofkani ay meel toos ugu dhacdo afar in qofkan xisaabaadka accountkiisii maraya noqdaan mid uu hadhow isaga laftigiisu amaahna ku qaadan karo deena ku saabsan karo marka arrintaasi waxay xoojisay runtii inay bangiga ay soo gelisay dakhli aad u badan oo runtii bangiga shaqaalaha qaranku ay ku kabeen serviceka ay u qabanayaan taasi waa saamaxday markaa in shaqaalaha maanta qaranku ay amaah ka qaataan bangiyada oo anagu u saxiixno warqadaha baabuur ku iibsadaan guryo ku dhistaan ku aroostaan deymo kale ku galaan iyadoo markaa mushaharkooga si yaroo fudud looga jaray markaa lacagahaasi runtaas arrintaasna waa arrin lagu guulaystay wasaaradaha runtii dhammaantood marka in yar laga tago oo aan sheegi karo 70% ilaa 80 in mashruucaasi success noqday inta yara dhimanna gobolada ay ku dhiman yihiin oo runtii sanadkan ay qorshaysan yihiin annaga iyo bangiga oo ka wada shaqeynayna hawshaasi inay hirgasho waxyaabaha kale runtii isagana hirgal waxaa ka mid ah dhamaystirka iyo soo afjarida shaqaalaha ku meel gaarka ah oo runtii qaranka mushkilad weyn ku haysta laba wasaaradood markaa jiro exceptional oo shaqaalaha ku meel gaarka jooga oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada nature-ka markaa labada wasaaradood ay ku shaqeeyaan ayaa wuxuu ka duwan yahay wasaaradaha kale tusaale ahaan MCH cusub haddii la dhiso waxaa laga yaabaa in loo baahdo shaqaale marka shaqaalihii processkii mari lahaa cycle-kii recruitment in laga guuro markaa shaqaale temporary ay qoran karaan wasaaraddu markaa shaqaalaha temporary-gii xaqii iyo xuquuqdii xeerku waajibiyey ma yeelanayaan waana halka runtii meelaha qaarkood isfahan waagu uu in badan ka dhaco tusaale ahaan imika MCH baa waxaa dhisaya qarankaa dhisaya ama cid kale ka caawinaysa 10 shaqaalaha loo qaadanaya safety children baa waxa laga yaabaa inay 5 sano ama 10 sano ay mushahar ka bixiso shaqaalahaas maalintii 10 sano ka dhamaadaan waxay ku soo wareegayaan markaa inay qaranka ku soo wareegaan marka qaranka ku soo wareegitaankiina waxay u baahan tahay in waqti miisaaniyadda la sameeyo ku soo wareegaan salaana haddii February ku soo wareegaan qaranka miisaaniyaddiina aanay ku jirin waxa waajib noqonaysa markaa in sanadka dambe lagu daro sanadka markaas waa halka conflict ka imanaya shaqaalaha ay oranayaan ama bayrolkii baa laga saaray oo ama mushaharna lama siiyo iyagoo 5 sanad cid kale ay caawinayso oo ay ka caawinayso wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda markaa maxay ahaydey caafimaadka marka wasaaradaha kale shaqaale temporary ma joogaan oo temporary-ga la suuliyay marka labada wasaaradood laga reebo waana labada wasaaradood runtii su'aalo badan ay ka iman karaan jawaabahoogana aanu hayno marka taa laga tago runtii waxyaabaha aan ku guulaysanay waxa kamid ah in dib u habeyn lagu sameeyay qaab dhismeedka wasaaradaha oo hay'addu shaqaaluhu ku sameysay tusaale ahaan wasaaradda waxaa mas-uul uga nahay xeerkuna uu jideynaya in qaab dhismeedka ay wasaaraddu ku shaqeynayso lala habeeyo iyadoo taladu ay ka imanayso wasaaraddii hay'adda shaqaalaha oo structure-kii laga sameeyo wasiirka waxaa ka daadegaya wasiir ku-xigeen ama agaasimo maxaa ka sii daadegaya agaasimo waaxididii markaa ka sii daadegaya agaasimo waaxididina waxaa ka sii daadegaya head of sectionist marka head of sectionist in loo sameeyo TR-kii ku shaqeynayaan in loo sameeyo qorshe hawleedkii ku shaqeynayaan in wasaaradda maaliyadda aanu sheegno in hebel waa agaasime waaxid mushaharkiisa ha loo kordhiyo oo markaa wasaaraddii loo gudbiyay marka runtii taana waan ku guulaysanay inaan wasaarado fara badan kala shaqeynay restructuring and reorganizationing waxaan loo yaqaano oo qaab dhismeedkii wasaaradaha aanu koobnay
tusaale ahaan iminka wasaaradda hiblaayo haddaad tusaale usoo qaadato structure waxba kama bedeli karto agaasime waaxid kuma soo dari karto haddii aan approvalku aanu ka iman wasaaradda hay'adda shaqaalaha oo runtii waqtigii hore waa dhici jirtay wasiirku marka shaqada uu yimaado inuu 100 agaasime waaxid ka magacaabi jiro marka agaasime waaxidadan magacaabaya waxa in line with leeyihiin oo ay ku jaan go'an yihiin qaab dhismeedkii wasaaradda loo sameeyey hay'adda shaqaaluhuna ay mas'uul ka ahayd taasina runtii waa mid aan ku guuleysanay wasaaraduhuna runtii aan ku controlno ku eegno waana mid aan ka wada soconay wasaaradda maaliyadda oo halkaan mar kasta ku controlina waa wasaaradda maaliyadda tirada shaqaalaha runtii hay'adda shaqaalaha saan sheegay waxay siisaa xuquuq bay siisaa shaqaalaha xaqa ay leeyihiin inagoo haynteenu ay yar tahay xeerkii shaqaalaha hore iyo xeerkanba runtii waajibaad gaara bay siinayaan shaqaalaha annaguna waa mas-uuliyaddeeda runtii inaanu taasi xoog saarno oo aan controlno marka xafiiska hay-adda shaqaalaha agaasimo waaxeedyaa jira agaasimo waaxeedka waaxda benshanka ama howlgabka oo runtii dadka howlgaba ama dadka maxay ahayde xaqooda u baahan maamula oo runtii xaqa shaqaalaha aanu siinaa runtii uu aada u badan yahay sanadba sanad ka dambaysa waana ta imika aan rajaynayno aniguna aasi leeyahay sanadkan waxyaabahan xoogga saarayna ay ka mid tahay inaan ka tago waqtiga inaan joogo in waaxdii beshanku ay gacmaheega lugaheeda ay isku istaagto oo runtii xeerku wuxuu sheegayaa da'da howlgabka idinkoo raggii dumarkii kala saaray xagga da'da in waqtigaa qofku markuu galo uu xaq u leeyahay in qarankii in badan hadduu soo shaqeeyey in runtii in la siiyo xeerka shaqaalaha dawladda aan sixiseen runtii waan idinku ammaanayaa waana dee ammaanaan idinku hayno dadaalkii aad ka geysateen xeerkaas oo dhimanayay marka waayo xeerkii hore ee laydiin soo gudbiyey siduu doonaba ha ahaadee dood iyo falanqayn dheer baad geliseen kadib xeerkaasi markaa waxaa ka dhashay in wax ka bedel badan aad ku samaysaan iyo ka habis markii guurteeda isdhaafiyeen madaxweynuhu idinku soo celiyay laakiin taladii ahayd in xeerkaasi aanu dhiman annaguna aan ku talinay inaad runtii qaadateen oon ammaanta idin hayno inaad xeerkii hore ee marka hore guurtida idinkaga yimid aad dib celisaan laakiin xeerkan imanka gacanta aynu ku hayno runtii galdaloolooyin badan buu leeyahay galdaloolooyinkaasina ama ilduuf ha ahaadaan ama ha ahaadaan kas waa kuwo u baahan runtii inaynu mustaqbalka ka wada shaqayno tusaalaha ugu fudud aan soo qaadanaya waxa weeyaan xeerka waxaa ka maqan institutionna ahayd in hay'ad shaqaalaha hoos yimaadaan tusaale waxaan soo qaadanaya bangiga tusaale waxaan soo qaadanaya wakaaladda biyaha hargeysa tusaale waxaan soo qaadanaya maxay ahayday dawladaha hoose hay'adda shaqaalaha oo maamusha shaqaalaha madaxtooyada inay maamuli kala weydo shaqaalaha institutionada aan sheegay idinkaa go-aamiyey marka waa dee waa su-aal idinku soo noqonaysa oo u baahan xaqii ay shaqaalahaas yeelanayaan procedurkii oriskooguu marayay procedurkii qoritaankoogu marayay mas-uuliyaddeedii de idinka ayaa runtii taasi u baahan ina mustaqbalka uga shaqeyno annagu qofka aanu shaqada ka saarayno procedure buu maraa qofka la qorayaana procedure buu maraa qofka ergiska ee wasaaradda intuu ka tago wasaarad kale tagayaana procedure buu maraa qofka transferka wasaaradda intuu ka tago wasaarad kale u wareegayaana wuxuu maraa procedure buu maraa xafiisyo dhan baa maamulo oo ilaa 5 ilaa 6 xafiis buu qofkaasi iskaga gudbaa mar kasta laakiin anagu de shaqaalaha wakaaladda biyo qoranayso ama madbacadda maxay ahayday dawladaha hoose qoranayaan ama ay qoranayaan maxay ahayday dekeduhu ama ay qoranayaan dawladaha hoose dee iyagaa u madax banaan awoodda iyagaa idinkaana siiyey anaguna dee ma question garaynayno laakiin de waa mid concernkeedu runtii uu jaago xeerku runtii waxyaabaha kale ee uu xoogga saaraya waxaa ka mid a in uu qeexay waxaa loo yaqaanay shaqaalaha dawladda shaqaalaha dawladda oo xeerkuna uu siyaasadda ka madnuucay صعبة كلمة ما صعبة ma waqti baan lahaa miya marka xeerkaasi tusaale ahaan agaasimayaasha guud wuxuu yidhi waa shaqaale dawladeed waxayna yeelanayaan xaqa shaqaaluhu ay yeelanayaan tusaale ahaan imika haddii agaasimo ka mida uu maanta madaxweynuhu eriyo wuxuu yeelanayaa xaq buu yeelanayaa kow mushaharkiisii buu yeelanayaa iyo gunadiisii kalaba waxaanu noqonayaa xubin ka mida shaqaalaha dawladda oo hoostiga hay'adda shaqaalaha marka xeerkii wuxuu shaqaalihii ka soo bilaabay agaasimihii guud
waxaanu siyaasaddii ka mamnuucay agaasimihii guud iyo wixii ku hooseeyey marka ayuu ka mamnuucay oo waa xeerka adduunku ansixisaan marka meelaha u baahan marka culays maaliyadeed arrimaha keeni kara iyo culays siyaasadeed meelaha keeni kara in runtii xeerka dib loogu noqdo waa qodobo fara badan oo runtii xeerka qodobada runtii xeerka markaad eegto xadka adeegsiga xeerka wuxuu u baahan yahay meelo fara badan in lagu noqdo oo meelaha qaarkood uu iska hor imanaya haddaad eegto taasina waa runtii mid u baahan waxyaabaha runtii aanu xooga saarnay waxaa ka mid a dhammaystirka siyaasadda daadejinta darajooyinka shaqaalaha dawladda oo imika socota tusaalaha shaqaalaha dawladdeenna waxay ku qaataan mushaharka A iyo B iyo C iyo D marka waxaan u baahannahay eeda waxaan ku tilmaanay waa heer jaamacadeed marka qofkii digriiga ahaa iyo qofkii masterska ahaa iyo qofkii PhD-ga ahaa maxaa lagu kala saaray anna kama jawaabi karno idiguna kama jawaabi kartaa laakiin waxaan u baahannahay siyaasad markaa ka dhalata maadaama oo siyaasaddaasi ay xeerku nafuray in siyaasaddii la sameeyo marka oo runtii markaa aanu imika gacanta ku hayno sanadkan aan jecelnahay inay dhammaato qodobada runtii markaa uu u kala saarayo scaleka bay and gradingna oo runtii uu noqdo mid aan ku guulaysano taana runtii waan wadnaa sanadkan baan rajaynaynaa sanadkan waxyaabaha aan hirgelinayna waxaa ka mid a habka casriga ee loo yaqaano human resource management information system human resource management information systemkii qaranka inaan hirgelino sanadkan insha allah qorshihiisana wadna waxaanan rajaynayaa in sanadkan ama aakhirka sanad bilowga sanadka kale haddii lahay dhahdo oo ciddii yacni uu alfiu gaadhsiiyo runtii inay hawshaa dhammaystirto taasoo runtii ka caawinaysa qaranka in la dhammaystiro human resource management information systemkii qaranka kaasoo packagekiisii oo dhan wata integrationkiisii wata oo tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga iyo xeerlaaliyaha xisaabiyaha isku xidhan arrinta kale runtii aan dhammaystirayna waxaa ka mid a qaab dhismeedka wasaaradaha koobanee noo hadhay waxyaabaha aanu samayna waxaa ka mid a oo annaguna aan imika samaynaa kormeer joogtaa wasaaradaha iyo hay-adaha qaranka oo runtii aan ku dabagalno sida xeerku iyo waajibaadku samaynayaan waxaanu 6 bilood umar samaynaa payroll cleaning waxa loo yaqaano payroll cleaningkaas waxaa kasoo dhex baxa dad dhintay oo mushaharkoogu socdo waxaa kasoo dhex baxa dad doofay oo mushaharkoogu socdo waxaa kasoo dhex baxa dad hay-ado kale u shaqeeya oo mushaharkoogu socdo waxaa kaloo kasoo dhex baxa dad aan shaqada iman oo maalinta mushaharkii laga joojiyay shaqadii laga saarana soo kaxaysanaya cidday doonaan halkaas soo istaagaya laakiin the good thing hay-addu waxay leedahay procedure iyo nidaam runtii dadkaasi la mariyo hal tusaaleaan idin sheegaya waxaa ka mid a oo ah runtii qofka shaqaalaha ah markuu shaqada ka baxayo procedureku nidaamka xeerku marinayo marka xafiiska kugu yimaada xafiiska kitaab baa taalla markaad ku tiraahdo kitaabkan haddaad gacanta saarto shaqadii waan kugu celinayna iminkaan kugu celinayna ama qalad ha haataa ama sax haata wixii lagaga saaray albaabkii ka baxa iyagoo weliba mas-uuliyin ay wadaan waayo qofki isagoo shaqo kale ka shaqeeya imika tusaale soo qaadanaya nin xubin guurtada ka mid a ayaa payroll cleankaasi wuxuu qabtay 48 bilood ulaca qaadanaya waana bilii u dambeeyey wuxuu qabtay dad dhoofay oo yurub iskaga raaxaysta oo mushaharkooga cid kale si qaada payroll cleankaas wuxuu qabtay dad dhintay marka runtii mas-uuliyad weyn baanu haynaa oo culayskeeda leh oo mararka qaarkood inaad go-aano adag qaato keenaysa mararka qaarkood keenaysa runtii in dad badan aanad raaligelin keenaysa mararka qaarkood in runtii cadaalad iyo hufnaan aad u samayso annagu 3 waxun baan ku dadaalnaa kow in qofka mas-uulka ah markuu noo soo gudbiyo cabashadooda tusaalahaan cabashadu waxay ka soo bilaabmataa wasaaradaha guddi baa jirta xeerku sheegay oo wasaaradda oo madax bannaan qofkaasi aan shaxmarintiisa markay noo soo gudbiyaan ma yeelna annagu oo intaasoo qof oo recording kaan ku haynaa shaqaalaha oo wasaaraduhu ay yidhaahdeen hal eriyo aan anagu shaqada ku celina qaarkood waa ku waafaqnaa qaarkood waa diidnaa qaarkood waan bedelnaa waayo xeerka iyo maxay ahayde iyo qawaaniintaan ku shaqeyno ayaa noo ogoltaas runtii shaqaalaha tababaro fara badan baan siinay sanadkan tababarada waxaa ka mid a kuwa aan personally bixiyo waxaa ka mid a tababaradaasi kuwa maxadka tababarka shaqaaluhu bixiyo tababarada waxaa ka mid a tababaro uu agaasimuhu bixiyo agaasimo waaxidinanoo jaamacadaha wax ka dhiga iminka agaasimaha waaxda sharciga agaasimihii waaxda maamulka agaasimihii waaxda maxay ahayde xiriirka dadweynaha communicationka intuba waa niman khubaraa waxaa kaloo runtii aanu u rajaynaynaa inaanu sanadkan scholarship iyo kaloo helno oo aan dadaallo fara badan wadno
waxyaabaha runtii cajiibka waxaa ka mid ah oo waxyaabaha lagu faanana ka mid ah waqtiga anagu aan jaamacadaha ku jirnay dugsiyada sare ku jirnay in shaqaalaha dawladda loo shaqo tagaa dadka ama u shaqo tagaya way yaraayeen ama dadka dareynaya aad bay u yaraayeen laakiin maanta dadka shaqaalaha dawladda ka shaqaynaya ee doonaya inay dawladda u shaqeeyaan waa significant aad bay u badantay waxaa meesha ka baxay private sectorkii waxaa ka baxay hay-adihii marka resourcekii wuxuu kusoo ururay markaa culayska wuxuu fuliy dawladdii marka culayska markaa xafiiskayga fushan mararka qaarkood sidii dawladaha hoosaad moodaan yacni kuyuga lagu jiro dadkaas waxay ka hadlayaan waa shaqaaleyn iyo procedure kale laakiin laba arrimood oo madaxweynuhu sameeyey waan ku ammaanaynaa kow shaqo qaran waxay si hab daahfurnaana ay u qeexaysaa qaabka shaqaalaha qaranku ay ku imanayaan hay-adda shaqaaluhu imika shaqaaleynta ay samaynayso resourceka employmentku wuxuu ka yimaadaa shaqo qaran markay processka ay soo dhammaystaan waxay kusoo dambeeyeen hay-adda shaqaalaha markaa wasaaradaha iyadoo wasaaradda maaliyadda u gudbinaysa markaa budgetkii in lagu daro gudbisa marka shaqadii imika la qorayo waxay kusoo ururtay markaa shaqo qaran laba iyo in shaqaalin ku-meel gaarhka ahaa faraha badnaa wasaaradaha joogay la suuliyo madaxweynuhuna uu runtii arrintaa aan ku ammaanayno oo uu xoog nala saaray runtii nala qabtay caqabado badan way iska jiraan oo waxay ka imanayaan bulshada laakiin dee taasi waxaanu diyaar u nahay inaan wixii aan qaban karno cabasho badan waxay ka imanaysaa runtii mas-uuliyiinta oo qof mas-uulo xildhibaano la doortay ama wasiire ama caaqila ama sudaana oo qof dhalinyari wax soo biday oo wax laga yaaba dee annaga xafiiska noogu imanaya oo runtii dee taa markhaati aad ka wadatiin annaguna runtii dee mas-uuliyadda iyo waajibaadkayga aan ka gudano oo wixii ilaahay nagu og yahay ma samayno wax kale aan samayno hay-adda shaqaalaha anigoo garwadeenka 3 wax baan ku shaqaynaa cidna uguma habrana anagu wuxuu doono qofkaas ha ahaado cidna uguma habrano wuxuu ilaahay nagu og yahay aan samayno cadaalada sinaana qofka ku raali gelin laakiin marnaba kama yeelno bini aadamkana runtii qof kasta oo ku yimaadaaba cabashadu ku keenayana sax ma aad imika jeelka tagtaan oo dadka wada xidhan aad ku tiraan maxaa laydinku xidhan qof kasta cadaalad darra lagu soo xidhay koonay kii hooyadii dilay kii wax kasta sameeyaa koonay cadaalad darra lagu soo xidhay waxay u baahan tahay markaa in shaarkaaga cad aad dhowrato qiyamkaaga iyo akhlaaqiyaadkaaga dhowrato anagu taasoo ku shaqaynaa hay-adda shaqaaluhuna runtii waa hay-ad u taagan arrimahaan soo sheegay waan soo koobay hadalkana waan dheereeyey mar labaad guddoomiye aad baan kaaga mahadnaqayaa labadii jeero hore annagaa cudur daaranay waktigaa nagu koobnaa maalin baadna siisaan shaqooyin noo yaalay fara badan laakiin haddana qoraal baan idinku soo jawaabnay oo dee sharciguna farayay marka inaad naga soo aqbashaanna waan kaaga mahadnaqaynaa runtii baarlamaanku wuxuu ka mid yahay institutionada sida dhow oo shaqeyn laakiin anagu waxaan samayno waa wax runtii u baahan dee cadaaladkii iyo nidaamkii iyo garsoorkii iyo akhlaaqiyaadkii inaan dhowrno aad baan kaaga mahadnaqayaa mudane guddoomiye baarlamaankana dee mar kasta diyaar baanu nahay su-aalihiina feel free su-aal kastood qabtaan diyaar baanu nahay inaan ka jawaabno aadna waan idinku mahadnaqaya